asxaabta waa kana website-ka looga bixi lahaa linkiisa waxaan igu reebi doonaa qaybta hoose description-ka sidii muuqaalka hore taba aan sameeyo waan igu reebi qaybta hoose description-ka ilaa ay hadartaan waxaa arkaa u maleynaa hal qof oo muuqaalkan duu si fiican u soo fahmay linkigan mise website-kan iska soo diiwaangeliyay oo lacagtiisa kala baxay marka asxaabta ay maadid waa is register gareynaysa waxa ku dhufan doontaa meesha ku qoran tahay register now marka is register gareysid gmail-kaada waxaa dhan ay gelisid password laga rabo inaad gelisid password-ka gelinaysid hadda ku sii sheega haddaba dhigeyso hadhow password-ka iga diiday yuu ii geli laay hadhin password-kaada waxaa la rabaa in uu ka kooban yahay 8 wax 8 waxyaabood uu ka kooban yahay waxaa la rabaa in ay ku jirto capital letter waxa la dhaho tusaale ahaan xarafka A oo kale capital letter waa in hal xaraf oo capital letter laga helaa waa in hal xaraf oo small letter laga helaa sidoo kale waa in laga helaa symbolska calaamad sida hash ko kale star ko kale iyo calaamadan gmail kala socota aadka loo yaqaano calaamadahaas stroke ko kale calaamada dollar ko kale calaamadaas waa in la socdaa mid kamid ah hadda waxaan ku dhawaynaa in 8 wax ka kooban yihiin waa in 8 wax ka kooban yahay capital letter uu ku jiraa hal number capital letter ku jiraa hal number small letter ku jiraa iyo xarfiya aad ku tirnaa midkood uu ku jiraa hal kamid ah marka tusaale ahaan waxa dhaysaa andii farax lagu dhaho andii cabdi lagu dhaho andii xasan lagu dhaho waxaan magacaaga intuu xasan yahay saan ahaan inta u qortid xasan meeqa number hadda qortid 1 2 3 4 5 6 ayaa qortid laba ayaa ka dhiman labada ka dhiman waxa ka dhigan kartaa calaamada at iyo 1 ka badan password oo haysata intaan password-kan ka dhigtid waa sax waa inuu intaas uu ka kooban number uu ka kooban yahay afwan number capital letter xabad ah small letter xabad ah iyo symbols xabad ah marka intaas uga baxno hadana account waa leeyahay ma sii geli dooni marka message register gareyn dooneen ka wada sign in ayaan dhahaa soo jeedina asxaabta hadartan waan soo galay markaan soo galayna meeshaan hadda ku jiro waa dashboard-kii website-kii lacagta lagu baxay aabka ka shaqeysatid lacagta ka shaqeysinaysay coins-kaada halkaas ay tagaysaa XP-gaada ayaa coins isku bedelayo halkaas ayuuna lagu dhigi doonaa in hadda waxay ugu jirto 21,776 coins weli dollar ahaan oo bedelan halaas yarta ii bedelan oo waxa ii bedelan hadartan 13 sent ay ii bedelan saan muuqaal koron ayaan ku sheegay markaas u joogtid website-ka u joogtid waxaa laga bedeshaa meeshan ay ku qoran tahay saddexdan falaarood saddexaas falaarood ay imaanaysaa saddex falaarood marka imaadid waxaad meeshan ugu horeysa aad ku aragtaa meel ay ku qoran tahay exchanges ay ku dhufanaysaa exchange marka ku dhufatid waa lacagta haysatay ayaa bedelinaysaa u jeedid hadartaan waa kana lacagta haystay halkii 119kii coin waxay u dhigmataa 0.01 USD intaas ayaa waxay u dhigmataa hal maxay magaceeyay hal sent 119 coin ayaa waxay dhigantaa hal sent marka waa wadaysaa ilaa inta lacag ay ka haysatid ee kaaga buuxsamayso meeshan plus ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa waa wadaysaa plus ay dhaysaa anad waa wada ilaa 21,000 iga gaarayso isaan waxa sameyn karaa meeshan maximum ku qoran tahay hal mar ku dhufan karaa si ay ilaa iyo maximum-ka igu tagto waa ka soo ku dhuftay waxay noqotay $1.82 sent marka rab inaan bedelo marka waxaan ku dhufanayaa meeshan ay ku qoran tahay maribin lacagta in hadda dhaqso aan bedesho laakiin idinka ay ku lafaysiin waxaan ku dhufan doonaa meeshaas calaamadaas oo waan bedelayaa sa u jeedin dartaan successful ay leedahay success toos ah ayaa lacagta ugu bedelay sa u wada jeedina meeshaas waxay isku bedeshay $1.96 marka hore waxay ka 13 sent hadartaan $1.96 ay noqotay $2.4 sent dhiman tahay lacagta coins-ka u jeedina 21,000 ahayd waxay noqotay 118 hayaan ka laabana marka
si u bedelayna marka hadana meesha saddexda calaamad ay ku dhufanayna intaan joognay waxaan ku dhufanay meeshan hoose saddexda calaamad ka bacdi waxaan noo soo baxay withdrawal meel ay ku qoranta withdraw ana ku dhufanayna withdraw marka ku dhufatid waa in sheegay waxa lacag kula bixi kartaa Coinbase, Airtime, Payeer, Perfect Money, Advcash, Amazon, PayPal, Litecoin iyo Binance intooda kula bixi kartaa laakiin way kala duwan yihiin minimum cash out kooda ayaa kala duwan Coinbase, Airtime iyo Payeer may Perfect kuma jirto sorry saddexdan waa 69 senti ay ugu yar hadana lacagtooda waa instant dhaqso ay ku soo dhacaysaa Perfect taxta dhaqso ku soo dhacaysaa Perfect $1 ay ugu yar ani marka maadaama $1.96 senti ugu jirto Perfect oo kula bixi karaa Payeer oo kula bixi karaa Coinbase oo kula bixi karaa Airtime oo kula bixi karaa Amazon oo kula bixi karaa ayadana PayPal oo kula bixi may PayPal waxa iga dhiman 3 senti ay iga dhiman sorry PayPal iyo Litecoin waxa iga dhiman 3 senti marka hadda aan ma rabin inaan Perfect lacagtan kula baxo maxaa yeelay lacagtan uma rabin in aan Perfect ahaan ka dhigto lacagtan wuxuu rabaa in ay cryptocurrency noqoto oo aan kula baxo Coinbase marka waxaan aadi doonaa Coinbase waxaan gelin doonaa meeshan Gmail-ka Coinbase asxaabta quruxda badan inta aan withdraw aan dhihin oo aan Coinbase kula bixin waxaan isla arki doonaa musaafirnina Coinbase inta noogu jirto masaraaga noogu jiro asxaabta ujeedin waxaa noogu jirto Coinbase dartaan $2 iyo 38 senti waxaan ku dar rabnaa $1 iyo haraag wax yar aan ku daray 2 senti kale ayaan ku daray oo ka dhinaad abka ayaan markuu laabto 2 senti ayaa ka soo shaqeeyay 2 senti ayaa ku daray dartaan waxay noqotay $1.28 senti marka meesha ayaa hadda gelin doonaa Gmail-kayga oo Coinbase-kayga kadibna withdraw ayaan dhihi doonaa marka asxaabta waan gelinay withdraw ayaan dhihi doonaa 1.98 ayaan gelin waxaan ku dhufanaynaa withdraw waxaan leeyahay do you confirm that this is your email address not that you are not responsible for wrongly populated fields mobta la Gmail emailka inuu emailkaaga yahay waxa aan dhahnaa marka oo confirm gareynaa oo withdraw ayaan dhahnaa success ujeedada asxaabta isla markii si degdeg ah ay kor igu soo dhacday ay goostay 3 senti santa u diray ayaa hadda kor iga soo dhacday asxaabta santa withdraw ugu dhuftay isla markii lacagtan ay hal raban ku aan dhiiray lacagtan 0 ay noqotay isla markii bashqada waxa soo dhacday oo Coinbase markaan fiirinana waxaan ku ogeyn $2 iyo 38 senti 3 senti ayaa transaction lagu goostay oo waxaan loo soo diray $1 iyo 95 senti marka ayaan isla aragno Coinbase intuu sheegayo inta ay noqotay dartaan haraaga wow ujeedin asxaabta $2 iyo 38 senti ayaa Coinbase noogu jirtay dartaan waxaan noogu jirto $4 iyo 33 senti farinta ugu dambeysay oo withdrawal-kan waatana you received Bitcoin from Give Limited waatana ujeedin asxaabta waxa la dhahay waxa heshay 0.00038 BTC oo dhigmata $1 iyo 20 iyo $1.95 senti macnaheedu waxa 3 senti ayaa waxa loo goostay transaction ahaan marka instant waa asxaabta isla markii si degdeg ah ay ku soo dhacaysaa saanta u codsatid ay si degdeg isla markii ku soo dhacaysaa mise Bitcoin mise Coinbase isticmaal mise waxa isticmaashaa Perfect Money aydan instant cash out waa lahay waana $1 ugu yar marka hadda sababtan Perfect u aadi waaye oo Coinbase u aadi waxay tahay waxa rabaa lacagta cryptocurrency ayaan ka rabaa ee ka barabi $1 ahaantan oo aan la soo baxay